kubadda cagta magac ma aha waa la in la ciyaaraa waa la ciyaari kari waayey waxaana u soo bahay gudoomiyaha hore xiriirka kubadda cagta sidaas ayaa guddigu meesha looga saaray waxaan cadaynaynaa marka in aan shaqada ay sideeda u socon doonto tartamadiina ay socon doonaan si dhaqso ah koongareskana waxaan u sheegaynaa inay u diyaar garoobaan xogayahana uu la wadaagi doono iyo kaaliyaha xogayaha wixii shaqaa oo ku saabsan in hore loo socdo goboladana sidoo kale aniga u sheegaynaa in ay u diyaar garoobaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ayaa noqon doona hadda acting presidentiga ama gudoomiyaha hadda haya xilka xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo wadi doona dhammaan shaqooyinka hadda qabyada u ah ama shaqooyinka hadda u taagan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta in la yiraahdo nin kale oo maartay meel u soo qoray ayaa xogayn noqon karo arrin aan macquul ahayn qof kasta oo wax fahmi karana wuu fahmayaa laakiin sida dhabta ah oo saxda ah waxa waaye xogaha way dhinac fadhiya asagana shaqada si wada u shaqeynayo cid xilka qaadan ma jirto waxa xilka laga qaaday waa gudoomiyihii hore xiriirka Soomaaliya kubadda cagta xaqiiqada marka la hadlo 8 sano la soo dhaafay kubadda cagta Soomaaliya gadaal u laabtay meesha hore u socodad gadaal u laabatay qofkan waxa fiican markii ay hore mar ay keeni weyso inay meesha banayso ay tiraahdo aniga waa is dhiibay intaan si xun aad uga bixin inaan is dhiibay keenaya waa inay anaga noo yimaadaan oo ay yiraahdaan milkiilayaasha kubadda cagta iyo dadka kubadda cagta loo yaqiinayo ee wax naga weydiiyaan wixii ay wadi waayaan wixii ay aqoon waayaan annaguna markaan aragno inay maaragtay siday wax u wadaan ay wax ka qaldan yihiin aan kabno Soomaalidu waxay tiraahdaa ammaano ugu raagtay inaad leedahay Soomaaliyeed ammaano kubadda cagta meesha ay taalo inaan ka qaadno cidna u hiilimayno cidna ka hiilimayno laakiin annaga waxaan nahay heebta kubadda cagta dadkii iskala hayaan banaay marka ma lagu sii tumaa ilaa ay ka dhimato maday karo xiriirka kubadda cagta oo mar walba faragelinta iyo wada hadalkiisa oo aad u badan yahay maaha waxa keenaya mataqaanaa qofka inuu maartay waa waxa loo sameeyay inuu ku takfiro loo ogolaado waay qofka waa laga diidi karaa dowladda kale tiraahdo mana maamulaysid maamulkaadana ma rabno waa dadka ciidan iskale dhulkana ciidan iskale ninkan kubadda iyo sharciga wataa bis waxaan ogeysiinaa lajna sports gudaha iyo dibaddaba waxaan jecelnahay shirweynayaal badan inaan qabanno shirweynayaasha gobolka soo socdana inaan ka qayb galno inaan marti maanta kadib ugu noqonayno kubadda cagta Soomaaliyeed in si jiri doonin sportiga hadduu noo hormaro anaga ciidan haysana male laakiin haddii aan yeel oo dhacdo sportiga aan la hormarinaynin ciidan ka hebaysanayna male anaga wala dagaalamayna in kacdoon laga sameeyo waxaan qof kaligiis ma laha يعني حفيزكaaga inaad adiga soo xirato oo maanta yani aan lagu imaan karin lagu cabasho lagu soo gudbin karin lagu la tali karin yani ma taqaan wixina adiga ay kugu xiran yihiin awoodii adiga ahays suurtagal ma aha in aan qabano forum ku saabsan horumarinta kubadda cagta dadka daneeya kubadda cagta oo Soomaaliga oo khibrada shirro baan u qaban doonaa Ilaahay duu ilaahdo dalka waxaan si fiican u gaarsiin doonaa kubadda cagta waxaan ka shaqeyn doonaa kubad cag oo wax la qaybsata dalka diriska iyo adduunka intiisa kalaba sidaad ogtihiin lama sakaafo ma ciyaarin oo soonkeena kaafo ma ciyaarin hal ciyaar oo carabtahan ciyaarnay ayadana waqti gaaban la ciyaaray intaasna waxay ku imaanaysay in hogaaminta ay aad u liidato waxaan waa mahadsantihiin